oo hadda cilaan aniga waxaan ka marayaa haddii gabadhan magaceeda Faadumo la yiraahdo inaan magac Faadumo cilaan aan ka sameeyo because macnaha taasna waxa keenayo the more practical aniga aan sameeyay heerkaasi uu ka gaaray xirfadda cilaan saarka waxay muujinaysaa dadaalkii uu ku bixiyay kanina waa Cabdiraxmaan Siyaad oo muddo 10 sano ah ku dhex jiray howlahan weligiisna fasal uma fariisan xirfadda uu maanta barayo hablo badan gabadha xaaskeyga ahayd ayaa iyadoo beriyo kale ciid ay tahay ayaa waxa ay rajeynaysay inay cilaan soo saarto berigaanina waa xilli waan diyaarinay thesiska buugga jaamacadda gabadhii marka telefoon bay iga soo wacday dhowr jeer telefoonkii kamaanan qabanin silentin wuu saarnaa bas xaafadii marka waxa ugu tagay gabdho iyada la dhashtay gabdhihii marka waxay rabeen inay israacaan ay bukuyeer tagaan cilaan soo saartaan marka aniga xaafadda imaaday ayadoo careysan aan imaaday oo dhayso telefoonka maxay iga qaban weysay waxaan raaci lahaa gabdhihii la dhashtay cilaan soo saaran lahaa kadib waxaan ku dhahay cilaan mise wax kale cilaan haduu yahay anaa ku saaraay hadii wax kale yihiin waa kaasa sidee cilaan igu saareen waxaan iraahdaa anaa ku saaraaye adiga sida aad oo loo qasanayo daamadoobe sidii oo kale iyo bacdi diyaarso laakiin cilaan ha isku wareerinin waayahay dhaaday wixii soo gadatay marka aniga xilligaasi cilaanada nuuciisa kala duwan ma garanayn ayada markii weydiiyay waxaan dhahay cilaanka aad adigu rabtay in lagu saaro magaciisa waxay tiri marka waxa la yiraahdaa bacweyn Allah okay xilligaasi waxa shaqeynaysay aaladan oo 2G shirkadda Hormuud internetkii aan galay markaan ku qoray bacweyn Google ku taqaana bacweyn ku qoray nashqada ii soo baxay nashqadii markaas aan u fiiriyo si raacay nashqaro aad u qurux badan ayaan ka dhax arkay ilaa anigu marka waxaan ahay qof artist ah markaas oo wax waliba oo la hor keeno bini aadamka adiga hadii wareysanayo Allah ka dhigay sawirkaaga gacan inaa ku sameyn karo sawirkii aan la soo degay ayaa isla markiiba practical ku sameeyay waa practical waa xifdiyay gabadhii hoosheedii soo dhameystay بعدين gurigay soo gashay waxaana diyaar ma tahay ha sidii aan marka cilaankii aan ugu bilaabay saaritaankiisii ayadoo dhulkeeda joogto labadii gacmood iyo labadii lugood laakiin waqti dheer ay galay maxay qofkan markuu waxa ku cusub yahay sida dumarka oo kale ma u boobsiin karo ilaahay shaqadiisa ma aha laakiin anigu waxaan sameynay trying isku daygii markuu waa guuleystay habeenkii gabadhii sidii cilaanka ku saaratay ayadoo faraxsan waxaan ka badbaadiyaybo cilaan oo meelaha looga soo saar lahaa orod looga soo suubin lahaa oo qurux noqon lahayn aan ka badbaadiyay tii marka waxay sababtay maalintii xaafadeeda iid ee aado in la arko dadkii rabeen inay israacaan iyadii cilaankii loo saaray oo waxay noqotay farqi weyn kii ida anaga aan u saaray iyo kuwi kale oo iyaga loo soo saaray markii la is barbar dhigay waxa qurux badnaaday midkaan xaaskeyga u saaray sidaas marka waxa ku bilaaway in dad ay yimaadaan iskuulkii ay dhahan macallin cilaan barta YouTube ayaa u suura gelisay inuu ka barto naqshado kala duwan oo cilaan saarka ah oo bacweyne aan ka barto oo khaliij aan barto oo daa'us aan barto marka barashadaan ku sheegay marka ma ahan inaan iskuul u tagay ee macnaha marba waxaan la soo degay nashqada la soo degay nashqadaas aan practiceeynay ilaa markii dambe aan gaaro inaan alifo cilaan loo yaqaano cilaan maxaa la yiraahdaa markaan soo tiri waxaan dhahaa bacweyne khaliij daa'us Mombasa Hargeysa Dubai Suudaan Baajuuni cilaan goosgoos cilaan Muqdisho waxaan ku sii daray marka cilaan ceel qalow cilaan buulxuwey cilaan daynile cilaan sarakuus cilaan shangaani cilaan bondere cilaan weedow xaafadada joogno cilaan qumbacoole waxaasaan marka dambe bilaabay waana micnaha sababta keenis marka waxay tahay cilaanadii kale waa soo dhameeyay ma cashirada uu ka bixiyay iskuulkiisa gaarka ah gaar ahaan cilaan saarka oo uu dhigay bartiisa TikTok waxay soo jiiteen dad badan kuwaas oo siyaabo kala duwan uga hadlay sidii aan marka waxaan kula wadaagay hadana dadkii barta TikTok igala socday halkaas marka waxay iga soo arkeen dad aad u fara badan dadka qaar marka waxa ku jiro kuwa ku dhahaya macallin adiga nin aad tahay qaybtan aad soo gashay qayb dumar waaye isaga bax mid waxay ku leedahay macallin ma sha Allah tahay keep going aniga ina ii saartidaaba u baahanahabo ee meeshaada intee waay gudaha fasalka waxaa ka socota howl adag waxayna ardaydu baraatikeynayaan sawirada cilaanka ee uu macallinkooda ugu xardhay sabuuradda hablo kala da'aad ah ayaa ku soo biiray iskuulka Amran Bashiirse waxay ka mid tahay kuwa gabagabada ah waxaan ku soo biiray sanadka 2022 macalinkeena Ustaad Cabdiraxmaan aan baray
haddana waxaa jeclaan lahaa inay arday badan dhigtaan ay ka faa'iidaan ani ciiddu aan wax badanaa ku bartay waana ka shaqaystay ciidan oo hadda soonfurka ahayd haddana dad badan waa rajeynaa inaysan aaga bartaan haddana waxaa kamid ahay ardayda shahaadada sugayso nin rag in wax laga barto way la yaabaan laakiin aad ay u fiican tahay in nin rag wax laga barto oo wax laga faa'iido badi dadka waxay leeyihiin nin rag maclaan saarayo soo sibira ma bay sibir yaqaaneen laakiin oo sibir kale aad u fiican yahay inta badan xirfadan waxaa looga bartay dumarka taasina waxay ku keentaa dhacdooyin aysan xusuustiisa ka go'in Cabdiraxmaan Siyaad balse uu leeyahay dulqaadkeeda maamo anoo mar albaabkan taagan ayaa maamo gabadh cilaan u keentay waxay weydiinay marka macallimada cilaankii weydiinay albaabkay taagan tahay aniga yaa la taagan marka waxay leedahay marka waxaa loo soo sheegay in iskuulkan maadadaas laga barto gabadhii waa soo waday aniga hortaagay marka waxay leeyihiin macallimada cilaanka aan u baahnayn maxaa la yiraahdaa inaan meeshaan gabadhaan ku soo biirino seeway marka waxaa yiri maama maasha Allah soo dhawaada gabadha ma cilaan rabteen ha hay intee degantiin xaafadda halkaan deganahay haye iskuulka cilaan laga dhigtay ma loo soo sheegay ha waayahay hadda diyaar ma utiin ha okay macalinka cilaanka dinaas aragtiin macallimadu waa diyaaratiin ha ay dhaaday waa kana dhaay oo ku hortaagan macalinka waa kanaabo macallin beena ay sheegeen macallin aniga waa dhaay qof kale raadis ma jiro macalinka cilaanka aniga waay in raggu aysan ka caaganaan karin xirfadan ayuu qabaa Cabdiraxmaan Siyaad balse hal shay ay u banaan tahay xirfadan marka dadka aaminsan in uusan nin rag ah uusan bari karin waxaan u cadeynaynaa inuu nin rag wax bari karo laakiin waxaan kaga talinaynaa nin rag haddii uu jiro inuusan saaritaan oo bukiyeer uusan u furanin ama haddii uu saarayo gabadhiisa iyo xaaskiisa iyo hooyadiisa uu ku ekaado diinteena islaamka iyo dhaqankeena suuban inaan ilaashano maadaama aynu nahay dad muslimiin ah marka saaritaan ku shaqo ma lihin laba xilli ayuu diyaariyay shahaadada heerka koobaad ee jaamacadda ee uu ka kala qaatay dhaqaalaha iyo cilmiga bulshada kaliyana kuma eka shaqadan ee waxaa kale oo u dheer naqshad sawirada ama graphic designer Cabdiraxmaan ku hal adeegiisa xirfadan waxay hablo badan u suura gelisay inay ka bartaan oo ay ku shaqaystaan